magacaygu waa Maxamed Rafaaci Ibraahim waxaan u dhashay dalka Masar. waxaan Soomaali imaaday sanadii 2015 تقريبا 4 سنوات. oo yaraan waxaan joogaa ilaa 4 sano. احنا طبعا عندنا هنا في المستشفى ملعب صغير. waxaan ciyaaro ku ciyaari jirnay garoon yar oo ku yaala isbitaalka dhexdiisa. جروب المستشفى. waxaana jiran ciyaartoy saaxiibo aan nahay sida Dadar Amiin oo nala ciyaari jiray. waxaan isbarnay ciyaartoy kale. لاعبين من الانديه المختلفه. taasna waxay noqotay fursad aan ku kala barto ciyaartoyda. وجدنا فرصه ان احنا نلعب معاهم في النادي بره يعني. هو الحاجه كويسه ان الماتش بيكون مثلا بعد الاوقات العمل الرسميه. ciyaaraha badana waxay dhacaan casri kadib markaan shaqada ka soo baxo. taasna waxay ii siisay fursad, laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar toddobaadkiiba inaan hal mar ciyaaro. فوجدت فرصه ان انا waxaana aad u jeclaystay inaan la ciyaaro kooxaha Soomaaliya. مع الانديه الصوماليه هنا وجدتها حاجه كويسه ان انا العب معاهم يعني. waxaan ahaa jiray ciyaartoy ka hor intaan bilaabay shaqada dhakhtarnimada. waxaana ka jeclahay kubadda cagta shaqada hadda aan qabto ee dhakhtarnimada. waxaana kubaddan ciyaari jiray intaan waxbarashada bilaabin ka hor. xilligaas aan joogay waddanka Masar. markii aan shaqada bilaabana waxaa ugu yaraatay fursadda aan ku ciyaaro ciyaarta kubadda cagta. انا لعبت مع kooxda Geeska Afrika waxaan u ciyaarayay ilaa iyo sanadkii hore. waxaan kala qayb galay koobka General Daawud ee sanadkii hore. wax badan ayaan ka bartay sportiga Soomaaliya. xitaa horyaalka Soomaaliya waxaa jooga ciyaartoy weyn oo qiimo badan leh. haddii ay fursad helaan ciyaartoyda ka ciyaarta Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay ku biiraan kooxaha weyn isla markaana u ciyaaraan. waxaa ka mid ah kooxaha weyn ee Soomaaliya ka ciyaara kooxda Dekada oo ka qayb gashay koobka Afrika. waxay la soo ciyaareen kooxda waddanka Masar ee Zamalek. waxaan rajeynayaa in ciyaaraha Soomaaliya mustaqbalka ay gaari doonaan meel aad u wanaagsan. ان شاء الله يكون لي مستقبل كويس ان شاء الله. rajadeedu ma ahayn in kooxdeena Geeska Afrika ay gaarto wareegga afardhamaadka koobka General Daawud, laakiin ciyaartoyda kooxdeeda waxay sameeyeen bandhig aad u qurux badan. hamiga ciyaartoyda ayaan ahaa inaan ku guuleysano inaan koobka qaadno. taasna waa sababta aan ku gaarnay heerka aan gaarnay. waxayna ahayd markii ugu horeysay kooxda Geeska Afrika ay gaarto wareegga afardhamaadka koobka. waxaan ka soo badinay kooxo waaweyn oo dalka ka ciyaara. waxaan u rajeynayaa mustaqbalka dhow kooxda Geeska Afrika inay ka mid noqon doonto kooxaha waaweyn ee dalka. هو دلوقتي حاليا انا كنت بلعب مع فريق افريقيا. caqabada jirta waxay tahay inaan markasta aan ka qayb geli karin tababarka joogtada ee kooxda, maxaa yeelay shaqooyinkayga dhakhtarnimo ayaa aad u fara badan. waxaan rajeynayaa in kooxda Geeska Afrika ay ka mid noqon doonto kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya. ويكون واخد ترتيب كويس ان شاء الله في الليج الصومالي ان شاء الله. ma jiro xiriir u dhexeeya kooxdeeda iyo isbitaalka aan ka howlgalo ee Masaarada, laakiin waxaa jira xiriir aniga iyo kooxdeeda inoo dhexeeya oo ah mid aad u weyn. ciyaaryahanada markay ay soo xanuunsadaan ama ay soo dhaawacmaan way igu soo booqdaan isbitaalka, anigana waxaan u caawiyaa si aad u weyn. markii aan yaraa oo aan jiray 20 sano wixii ka horeeyay waxaan ciyaari jiray kubadda cagta. waxaan u ciyaari jiray koox, laakiin markii aan bilaabay shaqada professionalka hadda aan hayo waxay ugu yaraatay xilliga aan ciyaari lahaa, balse waxaan bilaabay inaan la ciyaaro qaar ka mid ah saaxiibadeeda. كرة تماما لكن كلعب مع نادي كنت تركته يعني.